banaanbax ayaa ka dhacay magaalada Xamarlugu Xidh oo ka tirsan gobolka Cayn. Banaanbaxaas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta waxgaradka ururada haweenka dhalinyarada magaalada Xamarlugu Xidh ayaa waxaa banaanbaxaasi lagu taageersanaa maamulka cusub ee Khaatume State ee lagu dhisay degmada Taleex ee gobolka Sool. Maamulkaas oo loo sameeyay gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa banaanbaxayaashu waxa ay socod ku mariyeen wadooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada Xamarlugu Xidh ayagoo ku dhawaaqay riyaha kudhigooda ahaayeen Khaatume ha noolaato. Ugu dambeyntiina ay isugu yimaadeen barxad weyn oo ku taala magaalada Xamarlugu Xidh, halkaas oo dadweynaha banaanbaxa ka soo qayb qaadanayay ay kula hadleen mas'uuliyiintii iyo waxgaradkii ka qayb qaadanayay banaanbaxa ayaa sheegay in ay taageersan yihiin maamulka cusub ee Khaatume State. Banaanbaxayaashana ugu baaqay inay garab istaagaan maamulkaasi. Bismillahirrahmanirrahiim. waxaa dadweynaha reer Xamarlugu Xidh rag iyo dumar dhalinyaro waayeel culimo isugu soo baxay dhammaantii taageerada Khaatume State of Somalia. halkaa ayuu u tugan yahay. waxaanu leenahay Khaatume ha hirgasho. waxaanu leenahay Khaatume ha hantido maamulkeeda iyo dhulkeeda. dadkuna waa taageersan yahay. waxaanu ku faraxsannahay oo aad iyo aad ugu faraxsannahay siyaasiyiinta dhulbahante haddii ay soddon iyo saddex sano ka bacdi u naxeen dadkoodii iyadoo intaa dad beelo kale haddii ay ka naxeen oo maamul u sameeyeen waa ku faraxsannahay. waana soo dhowaynaynaa. waxaanuna rajaynaynaa guul baanu u rajaynaynaa. dadka Soomaaliyeed aanu dariska nahay walaalaha iyo waxaanu leenahay baaq baanu u diraynaa beel dawlad uma noqoto. waxaanu leenahay Soomaaliya qaran bay ahayd beelay u burburtay. hadday beelo u burburtay waxaanu leenahay hana nabadgeliyeen dhulkayaga iyo dadkayaga iyo maxaan ku yiraahdaa dunyadayada ha nabadgeliyeen. annaguna iyaga waa nabadgelin haddii aanu ka helno way insha Allah. waxaanu leenahay oo aanu ka baryaynaa oo ka codsanaynaa siyaasiyiintayada iyo qaa'idadayadu inay si nidaamsan oo amni ku jiro oo islaax ku jiro oo garasho dheeraadii ku jirto u hoggaamiyaan mujtamacan SSC la baxay. waxaanu kaloo sheeganaa oo dadka u sheeganaa haddaanu nahay magaalada Xamarlugu Xidh inaanu taageersannahay shirka ka dhacay Taleex. waxaanu kaloo idiin sheeganaa inaanu nahay dad muwaadiniin oo islaam ah oo wixii dulmiya aan ogolayn. wixii mudarro rabaana nin ma fuuli karee ha naga degeen. ha noolaato SSC. State of Somalia oo ay u horeeyaan isimada G6 siyaasiyiinta hadda la doortay ee cusub waxgaradkayaga dhammaan soo jeediyey shirka midho dhalka ah ee Taleex ee Khaatume ka dhalatay baan u yaan salaamaya. marlabaadka waxaan leeyahay walaalahayga waqooyi galbeedga Soomaaliya waa kala tagtay nin waliba gobolkiisa isaga u tashanaya. gobolkayaga cid aanu wax u weydiinayno iyo cid aanu wax uga amar qaadanayno iyo cid aanu u daba fadhiisanayna midna ma jirto. waxaan kuraasta loo ogolaan hadda inta Khaatume laga habeyn jiray waxaan kuraasta ugu sarsaraysan loo ogolaan waxa weeye ma doonayno isku dad ma nihin isku dal ma nihin. waxaan naga dhaxeeya nabadgelyo iyo wada dhalasho iyo darisnimo iyo islaamnimo baa naga dhaxaysa. aan isnabadgelino. dalkana waxaa iskale ninkii dhiiggiisa u huray ee gaalkii ka kiciyay ku soo halgamay raggiisii ku maqan yahay baa dalkana iskale Somaliland gabi ahaanba. xabadda maanta Buuhoodle iyo Laascaanood ka socotaana si xaqiiqo ah bay uga dhacaysaa Hargeysa iyo Burco haddaan laga daynin dadka. ku shaqaynayna reer yar waa ka xishoonayno dhulbaanta inaan wax ku samaysano taanu wax ku samaysanaynaa maanta. iyana ku
ku soo biireen Soomaali weyn wiilashooda iyo caruurahooda iyo waxay noo soo dirayaan hanaga ka haysteen labadna aan ku wada noolaan waxaan halkan ka xiro uga dirnay asal madoorshaha siilaanyo iyo dhaqanka isaga qandal wasahan ku tooday shacab ديار أمرهم بدار ما شرتنا وديار أدشي شيء ولا الكسل ميجي سوهيان أقعدني يابس كل وإيمان أورسان قلي هالخينا يويمان ما ذحنا قريكم بقوب تيمان إسا خلاص لو هالكل لقوقيني شانن كتجين وعين بانك على هين عرف كذا تجين وهذا هرجايس هود كordن لقى حكومين وبنجي قلا عجيه نبوه لا لندين دراويش مني هندجان كده كده كترسن gobolka cayn haweenkeeda marka u horeysay waxaan u mahad celinayaa dadkan ka soo qayb galay xafladan aanu ku mucaaradeeno maamulka SNM anagu Soomaaliland oran mayno waxaan u sheegaynaa anagu in aanu adduunka Soomaalida aan hadaynu nahay Soomaalida degto gobolada Sool Sanaag iyo Cayn aanu kaga taariikh badanahay dhulka oo aanu dagi jirnay marka waxaan leenahay gabdhahan Hargeysa iyo Burco ka banaan baxaya ninkii taariikh leh dalka maanta wax ka ah waa run dalka markaanu taariikhda aanu ku lahayn ee aanu haysanay Ingiriiska la ay maanta daba socdaan iyo dalkan gaaladu ma joogin arlada niman daraawiish la yiraahdo oo ka duula taleex baa joogi jiray marka sida lagu heli maayo Soomaaliya ha noolaato أمسا هبالي هدبا أنا بصولي يا سنة عين هدان النهي يسومها لله وكسوع النهي لا يسومها لله وكسوع النهي دارها ويش رجل بحي دولة دارتين دارها ويش رجل بحي دولة دارتين وهلا نمانكي حري يا كحيرة إساق نمانكي كوفي كهنا مريحي سياك الكيران نمانكي البرغو تريسي كاليغاي قماد دارها ويشينا يا كغادي ولا لسولي يا سناك عيننا ندلن تالحنا أنا هدينون تربون كتجين وهد خاتو من خير كيس الله ختمين أنا قدوني معنا الدولة بانو نهاي maahan markii ugu horeysay oo banaanbaxyo noocan oo kale oo lagu taageero maamulka cusub ee loo dhisay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay ka dhacaan gobolka Cayn ayagoo isbuucii la soo dhaafayna uu ka dhacay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn banaanbax aad u ballaaran oo lagu taageersan yahay maamul goboleedka cusub ee loo dhisay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn